السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت لي كسو دواada Ramaale Cooking Channel. waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan, galab wanaagsan, subax wanaagsan intaba. maanta waxaa idin sameynayaa bariis aan maaragtaya karoot ku dhex kariyay iyo digaag insha Allah. marka ila socda waa baby chickenka yar aan afar qayb loo jaray, maqaarkana dubkan waa laga saaray. marka insha Allah waxaan marinayaa xawaaji kala duwan. waxaa halka ku haystaa xawaaji keeri, paprika, maraq digaag, tuun iyo sanjabiil la shiiday, iyo xawaaj iyo in yar oo ketchup ah. waa wax dhexda ku jiro waa ketchup. marka inta iyo basbaas yar ku jiro, intaas isku qaseynaa. waxaa ku darayaa yogurt, waxaa ku darayaa hadduu ilaahay ku roon yahay in yar oo olive ah. marka intaas isku qaseynaa. chickenka la marmarinaya insha Allah aad u macaan doona, waan la yaabi doontiin. waa yogurt naturalka ah. marka intaas isku qaseynaa. aday qaado laba qaado oo qaadada shaaha oo kale ayaan ku shubayaa insha Allah. kole wax dhawaan iska qiyaas, qof walba qiyaastiisi ha sameysto insha Allah. marka chickenka ku qaseynaa, inkastoo ay fiicnaan lahayd inaan habeenkii inta qaso fridge-ka aan geliyo, sida maaragtaya gudaha ee uu gasho dhadhanka jirka hilibka uu galo. marka ma aysan noqonin hata olive ku dareynaa adi 1 teaspoon maya qaadada weyn oo kale hal xabo. wixii xawaaj ahaa iyo kulli iyo macal ketchupkii waa ku qaseynaa, korka laga marmarinayaa ilaa iyo inta aad hoos gaarsiin gaarsii wixii dhan inuu jirka ka galaa qurux badan. marka insha Allah waxaan ku sameyneynaa air fryerka bahalka digsigaas meesha ii saaran mashin yar oo wata oo la geliyo lagu daaro, kaas ku sameyneynaa. marka cunada kaas lagu sameeyana aad ugu healthy badan yahay cunada oo maaragta oo saliid iyo waxaas lagu sameeyo. marka waxaan rabaa inuu steam ii noqdo, isku huuro wixii oo dhan insha Allah. baradhana waa jarjaraneynaa, 3 xabo baradho ayaan jarjaraneynaa. aan saxankii xawaajiga iyo aan chickenka ka saaranay ayaan waxaan rabaa xawaajkaas la inaan baradhadan marmariyo, aan digsiga ku wada shubo, aan ovenka bahalka ku xareeyo, ovenka ma air fryerka ku xareeyo ayaan rabaa insha Allah. marka xawaajkii waa marmarinay soo ma jeedid, digsigii aan ku ridayaa hadeer. baradhada fiiqanayna kadib iyadana ku dareynaa, hoos gelineynaa, yani air fryerka gelineynaa. kadib waxaan soo jeesanaynaa bariiska. digsiga wuu ii dhaqan yahay, bariiskana waan radiyay 40 minutes ka hor aan radiyay. marka waxaan rabaa inuu maaragtaya oo ilaa iyo 40 daqiiqo biyo uu saas ugu oolnaado. kadib ayaan dhaqayaa, aan karin doonaa insha Allah. haatan chickenkeeni waa inoo diyaar, ma u baahna saliid kale inaan ku daro, ma u baahna wax kale inaan ku daro, bes intaas ku filan. baradhada fiiqaya, saxanka xawaaj badan ku haray, xawaajkaas una marmarinayaa baradhada. maraba inaan yaryareeyo, waaweyn u jarjarayaa. kadibna digsigan ku dhex ridayaa insha Allah. waa chickenkii iyo baradhada hal mar isla karayaan hadduu rabbi raali ka noqdo. waa kaas sidaas oo jarjaray. caadi waa fiiqay baradhadeena caadiga ah, waa fiiqay 4 qayb saas oo qaybiyay 4 qayb. dan way isla karayaan insha Allah.
way isla karayaan. kadibna waxaan rabaa inaan haddana saliidii iyo digsigii bariiska aan ku karin lahaa usoo jeesto. insha allah baradhadeeni chickenkeeni waa inoo diyaar baradhadii chickenkii waa ka xabaajkii una marmarinaya. marka baradhada markii xabaajka saas loo mariyo aad u macaanaanaya, ciyaalka ma diidayaan, aaday u cunaan, way jecel yihiin. bahalkana ma ahan bahal saliid iyo wax lagu sameeyo. haddaan air fryerka lagu sameeyo saliidii ma u baahna. marka baradhada markay halka ku karto waana healthy, dhadhanna way leedahay. insha allah chickenkii la bislaan doontaa. marka waxa inoo harsan waa bariiskii. insha allah bariiskan waa idin tusinaya saan u karin doono. waa idin tusinaya. haata digsiga ku wada ridinaynaa. walaalayaal asxaabta sharafta leh waxaan idinka codsanaynaa inaa maaragtay laagti commenti share kaba noogu dadaashaan. insha allah waxaan haatan chickenkeeni waa diyaar. waxaa la gelinayaa mashinka waana daaraynaa khalaas. hadda kaaroodkii ayaa la hoolayaa. kaaroodka waa dhaqay, labada dhinacaan ka jaray, waan hoolay, yacni dubka kore ka qaaday. and then waxaan rabaa inaan hoolo oo yaryar, si yaryar u hoolo. insha allah kadibna basasheeni waa inoo diyaar, toontii kuli. marka digsigii waxaan ku shubay intaas telefoonka iga yara buuxsamay, qada isoo galay. marka saliid yara ku shubay iyo subugeeni saafiga ahaa oo wadankii laga keenay haystii isku daray. basal yara ku shubay, bariiskii qalajiyay. haatana maraq dijaajkii ku daraya iyo xabaaj bariiska loogu talagalay. intaas iyo basalkii iyo tuun iyo ginger oo shiidan, qorfo iyo heel, intaas oo ku daraya. insha allah hadda waa ka xawaajigaas aad u fiican yahay. haddaa ka haysatid wax kalaba ma u baahnid inaad ku dartid bariiska, asagaa enough kugu ah. marka ginger iyo waxaa ku jiro sanjabiil iyo toon laisku shiiday ayaa halkaas ku jiro. hal qaado kale oo qaadada shaaha oo kale enough ay ku tahay, inkastoo ani mindida afkeeda aan isticmaalo saas ugu darsado, laakiin qaadada shaahiga enough ay idinku tahay. kaaroodkiina sidaas u jarjaray, waa 2 xabo kaarood. bariiskana waa 2 koob oo bariis ah, 2 cups of rice waaye. waa kana subug saafi Soomaaliya laga keenay weeye. marka in yar una ku daray si bariisku uu carfo. insha allah haatana wixii dhan waa ku darnay, wuu isla huurayaa. chickenkii aan kasoo saaray, hadda waa rogayaa, dhanka kale u rogayaa, weli si fiican uma karin. asii baradhadii waa dhinaca kale u rogayaa, kadibna air fryerka ku celinaya. asagana waa kadib ilaa 20 minutes kadib waa kasoo saaraynaa. insha allah bariiskeenina waa inoo diyaar. haata oo sida ka aragtaan meesha maasha allah wuu kari, wax dhiman ma lahan. asagii kaaroodkiisii wixiisii caraftiisii maasha allah kaale arag kusoo baxay, wuu karay, waa diyaar. asagana waxaan kaliya sugna waa chickenkii aan mar labaad ku celinay. ayaan sugaynaa insha allah. chickenkeenina waa inoo diyaar. waa kan dhanka kalena wuu gaduutay isagana, soo ma ujeedid sidaasuu kusoo baxay. maasha allah chicken aad u macaan waay. haatan waa guranaynaa, saxankeena ayaa sharxanaynaa. bariiskii caraftiisii subxaan allah magaalada qabatay, subugii, qorfihii, heelkii, xawaajkii isqabtay. maasha allah tabaaraka allah.
bariiska saas ku soo baxay bariis furfur ah aan saliid lahayn saliid male wallahi saliid badan yaana dhihinay saliid maba laga dareemayo saa u jeedaan maba lahaba saliid wixii dhan way isla egyihiin way isla bislaadeen marka maasha allah caraftiisi subxaanallah aad uu caraf badan yahay maxaa ku soo haray chickenkeena dhinaca ka saaranaynaa baradhadeeni saladkeeni yar maasha allah qofkii rabo inuu basbaas ku cuno welcome kii kalena ma u baahnaba basbaas laana waa laqlaqaysaa waa laqlaqay haddii aad dhadhamin lahayd maasha allah tabaarakallah walaalayaal waxaa haddana mar labaad idinka codsanaynaa like subscribe comment share kulli waa xaggiini hanaga baqiilina hanoqon baqiil walaashiina ramaala oo idin leh igu kaalmeeya intaas waxaa kaloo diyaarinaynaa saladkii in yar soosa kasoo baxay mojeeda ma ahan dry bahasha saliidna male hal qaado olive oil una ku karine maasha allah tabaarakallah idinkana maasha allah ii dhaha inta haysanana ilaahu sii inta haysatana ilaahu barakay waa kaa saxankeena quruxda badnaa saladkeeni waa kaa waa inoo diyaar maasha allah caraftiisii lagama sheekey karo iyo cunustiisiba maanta waxaa la yiri bariis ka dhacaya meesha laga soo saaray maasha allah quruxdiisi waa kaa in yaroo sabiiba korka ugu daadinaynaa so waxaa idin leeyahay walaalayaal welcome mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba kusoo dhawaada gacmo furan waa walaashiini oo idin leh soo dhawaada ha ismartiyeenina soo dhawaada saxankeeni saas u qurux badnaade anaa idin dhadhami doono insha allah maasha allah tabaarakallah waa aragtaan quruxdiisi waa mid lala dhacay waa lala dhacay insha allah soo dhawaada waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaantiina caafimaad isku ognahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu